haweenaydu waxay guriga ku soo laabatay ayada oo markaas aragtay ninkeeda oo si aad ah ugu dhowaanaya haweenay uur leh. Intaysan xitaa weydiin cidda haweenaydu tahay ayay gabadheedii ku oroday oo ku tiri, hooyo cusub baa gurigeena timid waxayna ii dhalaysaa walaal yar. Iyadoo hadalkaas maqashay ayay haweenaydu naxdin darteed dhag ku dhacday. Ma rumaysan karin in ninkeeda khiyaano ku sameeyo, waxayna si dheer ugu qaylisay isaga oo weydiisay sababta saaxiibtiisu guriga u joogto. Intuu ninku jawaabi lahaa ayuu aabbihii soo dhex galay oo sharaxay in haweenaydaasi uur u leedahay wiil oo uu yahay ilmaha ninkeeda. Qoyska oo dhan ayaa go'aansaday in ay u oggolaadaan inay dhasho sababtoo ah haweenaydu marnaba kama dhalin wiil. Hanti weyn oo qoyska u taalna ma ahaan karto mid aan lahayn cid dhaxlata, sidaas awgeed ayay go'aankan u qaateen. Ka hor intaysan haweenaydu hadal kale dhihin, aabbaha ninka oo raganimo xad dhaaf ah wata ayaa sheegay in ay caadi u tahay in nin uu dibadda khalad ka galo. Xitaa wuxuu canaantay xaaskiisa oo difaacaysay haweenayda. Markay aragtay sida qoyska oo dhan uula dhaqmayaan, haweenaydu waxay dareentay in 6dii sano ee ay guurka ku bixisay waxba ka tarin. Xitaa shaqadii ayay uga tagtay si ay qoyska u daryeesho. Waxayse ogaatay in ay ahayd guri joog lacag la'aan ah oo u adeegta qoyskiisa isaga oo aan marnaba arag dadaalkeeda. Wuxuu u haystay in wixii ay qabatay ay ahayd wax caadiyan laga filayo. Xitaa wuxuu ku eedeeyey khalad walba. Khaladkeedu wuxuu ahaa oo keliya inay wiil u dhalin kari weyday. Intaas markuu yidhi, saaxiibtiisu waxay bilowday inay ku faanto hortooda. Waxay ku tiri haweenayda, waxaad tahay naag guri joog foolxun, qurux iyo heer midna kumaad gaarto aniga. Markaas ayay haweenaydu dharbaaxday iyada. Waxay ku tiri, waan guri dumis aan xishood lahayn. Saaxiibtii ayaa carowday. Waxay ninka u sheegtay inay beri leedahay shir mashruuc $1 bilyan ah, haddana wejigeeda la dharbaaxay, sidee u tegtaa. Markaas ninkii ayaa dharbaaxay xaaskiisa isagoo eedaynaya. Markay aamustay, aabbaha ninka ayaa u qaatay inay qiratay khalad. Wuxuu xitaa ku amray inay daryeesho haweenayda uurka leh ilaa ay dhasho. Laakiin haweenaydu diiday. Waxay diyaar garowday inay gabadheedii la baxdo. Laakiin si lama filaan ah, aabbaha ninka ayaa diiday. Wuxuu sheegay in gabadhu tahay awowgiis, ayna khasab tahay inay joogto maadaama haweenaydu shaqo la'aan tahay oo aysan waxba ku kori karin. Xitaa saaxiibtii waxay ku kaftantay iyadoo leh, sanado badan baad shaqo la'aan ahayd, sidee u kori kartaa gabadh? Waxay tiri, iiga tag gabadha, anigaa u daryeeli doona sidii gabadhayda. Markay haweenaydu diiday, hooyada ninka ayaa isku dayday inay ku qanciso iyadoo leh, aniga gabadha u daryeeli doona, adiguna shaqo raadi, markaas ayaan kuu soo celinaynaa. Hadalkii hooyada ninka ayay maqlay, waxayna iska tagtay iyada oo gabadheedii ka tagtay. Dhowr maalmood kadib, haweenaydu waxay bilowday raadin shaqo, mid u oggolaanaysa inay gabadheeda u joogto islamarkaana mushaar fiican leh. Laakiin muddo dheer kadib wax ku habboon ma aysan helin. Iyadoo jahawareersan ayaa loo soo diray wicitaan. Waxaa loo casuumay shaqo waraysi booska falanqeeya maaliyadeed oo shirkad ah berito. Mushaarka iyo faa'iidadu waxay ahaayeen kuwa ay rabtay, sidaas ayay markiiba ku aqbashay. Laakiin waxayse ogeyn in agaasimaha harka shirkaddaasi ay tahay saaxiibtii ninkeeda. Markay aragtay haweenaydu inay imaanayso shirkadda, waxay go'aansatay inay iskeed u waraysato si ay u ceebayso. Maalintii xigtay, markay haweenaydu timid shirkadda, waxaa loo qaaday xafiiska. Markii waraystaha iska rogto ayay ogaatay in ay tahay saaxiibtii ninkeeda. Laakiin si ay shaqada u hesho, way isku qasabtay. Laakiin saaxiibtii ayaa isla markiiba ku maagtay iyadoo ku tiri inay tahay naag lagu neceb yahay ninkeeda gurigiisa dhexdiisa. Haweenayduna way istaagtay iyadoo damacsan inay baxdo, laakiin saaxiibtii ayaa joojisay. Waxay tiri, waxaan ogahay inaad ahayd shaqaale hoose ka hor guurkaaga, 6 sanonaad guri joog ahayd. Laakiin afigaagu aad buu u qurux badan yahay. Waxaan u malaynayaa inaad been qortay. Haweenayduna ma cabsan. Wax walba oo afiga ku qorani waa run. Waxay u sheegtay inay jeclaan lahayd inay xaqiijiyaan. Saaxiibtii shirkaddii hore ayay wacday, waxaana laga sheegay in aysan haweenaydu ka shaqayn. Markaas ayay ka sii rumaysatay inay been qortay. Waxay ku tiri, waa naag aan xishood lahayn. Laakiin haweenaydu keliya ayaa ogayd runta. Mar ayay ahayd eeyo shirkad weyn. Laakiin ma jeclayn inay muuqato, waa sababta shaqaalaha badankoodu aanay u aqoon. Markaas ayay shaqada uga tagtay si ay ninkeeda ganacsi ugu bilowdo, kadibna guri joog noqotay. Xitaa mar waxaa loo soo bandhigay mushaar aad u sarreeya si ay mar kale eeyo u noqoto, wallow ay diiday si qoyska dartiis. Waxayse ogaan lahayd in shirkadda ay maanta waraysiga u imaatay ay tahay farac ka tirsan shirkaddii ay hore u madaxda ka ahayd. Xitaa saaxiibtii ha ka ahayd waa hoos imaad ka tirsan shakhsi iyada ka amar qaata. Laakiin saaxiibtii oo jaahil ah arrintaas ma ogeyn. Waxay ku tiri, adiga iyo gabadhaadaba waxaad u dhalateen inaad dadka u adeegtaan. Marka wiilkaygu dhasho, gabadhaadu waxayna u noqon doontaa adeegto. Ka hor intaysan hadalkeeda dhammayn ayay haweenaydu dharbaaxday. Saaxiibtii oo la ceebeeyey waxay amartay raggeeda inay haweenayda garaacaan. Waxay ku hanjabtay gabadheeda. Markay diiday inay jilicsato, waxay amartay ragga inay dharkeeda ka siibaan si ay u ceebeeyaan. Waxay xitaa isku dayday inay shaqaalaha oo dhan ugu yeerto si ay u arkaan, una duubto muuqaalka si ay internetka u geliso. Waxay ku qasabtay haweenayda inay qirto inay guri dumis tahay, haddii kale gabadheeda ma cafin doonto. Laakiin haweenaydu marnaba yeelin. Markaa saaxiibtii waxay aragtay mindi miiska saaran. Way ku soo oroday iyadoo damacsan inay ku weerarto, laakiin qof ayaa qabtay wakhtigii ugu dambeeyey. Markay aragtay qofkaasi ayay aad ula yaabtay.